gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Saylac Sacad Daahir Cige oo ku sugan magaalada Xariirada ee xarunta ganacsiga gobolka Salel oo maanta telefishinka caalamiga Ariel TV kula kulmay isla magaalada Xariirada ayaa waxaan wax ka weydiinay arrimaha la xiriira xanuunka COVID-19 iyo ka maamul ahaan degmada Saylac iyo tuulooyinka hoos yimaada waxa uu qabsoomay intii uu xilka hayay waxaana waraysigiina dhexmaray maayirka degmada Saylac oo u dhignaa sidan waxa la noo sheegay inaad ku socoto arrimaha wacyigelinta ee xanuunka hortagga coronavirus bal arinta wad xilliga si qod ma santahay wadane waxaan u soconaa waa hawsha wacyigelinta Saylac baan ahay ishtarato Saylac anagu shir baan ku qabanay saad ogtiin annaga iyo gudoomiyaha gobolka oo iyo iskaashanayna gudida COVID-19 iskaashanayna annaga isku tashanay ayaa waxaanu ku sameeynay shir ku galay waxaanu go'aan ku gaarnay inaan annagu dhammaan maadaama degmadu u badan tahay dad reemiye xuduudeeduna dheer tahay dalal dalka Djibouti iyo Ethiopia aan jaar la nahay iyo laftoona ee xanuunadu farabaas ku hayaan waxaanu garanay inaan annagu is-abaabulo ka gobol ahaan waxaanu sameynay 7 tiim oo wacyigelina waxa oo annagu ismaamuleynay 7 tiim waxaan u qaybinay 19 tuulo ee degmada Saylac hoos yimaada iyo gobolkaba imika waa gartay imika waxaad joogtay gudoomiyaalkii xaruntii wax weeyaan waa goobtii xuduudka aynu kala wadaagaynay Ethiopia yaad ku sugnaydeen sida caadiga ahayd waxa muhiim ah in gawaaridiina mikrofoonna iyo waxa ay la socdaan cidibay joogin haddana wacyigelin baad sameynaysaa marka dadka ma wax iibu ugu tagaya wacyigelintu ma dadka kulli gaar mikrofoonka waasin gaariga ambalaaska caafimaadka noo saaran yahay wacyigelintu dadka waanu la hadlaynaa magaaladana waanu maraynaa laakiin waxaan sababta aan halkan ugu soo horeeyay waxa weeye waa xadkii inoo dhaxeeyay inaga Ethiopia oo controlkii waa checkingkii laga baxayay lagana soo galiyay waa gartay gudoomiye waxa tahay maayirka degmada Saylac gobolka Salel waxa uu leeyahay xuduud ballaaran oo la leeyahay Ethiopia iyo Djibouti dadku waxay ka soo galaan Geestiir bay ka soo galaan waxay ka soo galaan Casaamo Sharqiisa area oo ka soo galaan dhulka waxa la noo sheegay inaan ciidan jirin ka maamul ahaan aanad waxba warkaynin arrinta maxaa ka jawaabsan may taas waa been waa jooga ciidanku min low yacado ilaa iyo inta xuduudka Djibouti la leeyahay waa joogan ciidankii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa jooga anana waan ka warhaynaa waan la soconaa wixii soo galaya iyo wixii ka baxay waan ognahay wixii Djibouti ka soo baxay waan celinaa wixii xaal ka gudbayna ciidanka cish qofka aad uga shakidaan xanuunka COVID-19 ee aad calaamadihiisa ku aragtaan maliidina meel lagu kaaraantinimeeyo oo gobolka waan ognahay xaaladiisa cusbitaalo waaweyn ma laha waxa la noo sheegay in cidda aad qabataan aad geedo hoosteed intaad geysaan oo 15 ilaa 20 shay ku danayoogaan arrinta maxaad ka jawaabaysaa waxa ay ku yiri adiga waxaan jirin dadka sheegin saxaafadii sheegay waxaan jirin wixii lagu arko xanuun waxa anaga 2 qof wax laga shaqeeyay 2 qof wali degmada oo Djibouti ka soo baxay 2 qofna anagu waan u diyaarinay meeshii lagu kaantiray ku haynay 14 cisho waxaan ku haynay dugsiga hoose dhexe ee Lawicad aan ku haynay halkaas lagu dhaqaaleynayay cuntadooda iyo kharashkooda iyo wax qabaalkooda iyo biyoogaba anaga gacanta ku haynay gobolka iyo anaga iskaashayna gacanta ku haynay wixii lagu sheegay wixii barbaaqada meel laga sheeganayay su'aalaha waa ku dheereeyay aad bad ma tahay gudoomiye waxa kala qoydana sheegan waxa tahay maayirka golaha deegaanka ee degmada Saylac xilligii maayirkii ka horeeyay inta badan dadku waxay ku xamed jireen inuu ahaa ninka ugu waxqabadka badan ee meelaha dhismayaal fara badan adigu muddada 2 sano aad joogto wali meel xadhig laga jarayo iyo meel muxuu ah wax ka qabatay ma jireen arrintaasi ma dhaqaale la'aan xaga mise waa waxba waxa jira inta horena maayirka uu joogay wuxuu qaban jiray anana imkaan qabanay waxaan qabanay wax muuqdo wax la qarinayo ma hadda waxaanu xadhig ka jari joonaa 7 mashruuc ayaan imika xalay ka jiri doonaa oo dhamaaday imika dhamaaday xarid waxa ugu jiray isbitaalka oo 3 maqsad ugu dareysaan iyo dugsiga hoose oo muddo hore waxba la qaateen labadii midna laba hayo arrinta taasi halkay ugu dambeysay waad arkaysaa dugsiga hoose dhexe deyrkii laba kalaas ku daray haday indhaha aad kala ayntiin wax qabadkay ka mid tahay waad la socotaa in deyrka quruxda badan iyo muxuu ahay dabada kalaas lagu daray waad ogtahay dugsigan hoose dhexina qorshaha sanadka kuma jirin Abdulmajid Ibrahim Muumin Ariel TV Xariirad shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab